bismillahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan u mahadcelinaa ilaahay subxaana wa tacaala. marka labaad gudoomiyihii hore ee degmada Garbaarey, gudoomiyihii hore degmada Buur Dhuuba Xasan Maxamed Cali, anigoo ah gudoomiyihii ku-xigeenkii hore gobolka Gala, iyo siyaasiyiin kale oo halkaa nala fadhida iyo rag odayaasha dhaqanka qayb ka mid ah oo halkaa nala fadhiya. waxaan rabnaa maanta in halkaan ku qabanno shir jaraa'id. shirka iyaga xumaan ma ahan, waa shir gobolka miro dhal u noqonaya. xaqiiqdii haddaan run la sheegin waxaa kaayan wax been la yidhaahda. gobolkan wuxuu hoos tagaa isteedka Jubbaland, waxaa madaxweyne ka ah Axmed Maxamed Islaam, nin diida iyo nin ogolaadaba asagaa madaxweyne u ah. waxaa lagu dhaqmayaan adduunka waa sharciyad. haddii sharciyadda lagu dhaqmi waayana haddee meel xuman unbaa la tegayaa. annaga waxaan nahaynay siyaasiyiintii hore oo gobolkan ka shaqaynaysay. haddee mar baa aniga raggan ku jiro la leexiyey oo nagula leexiyey wax sharci darre ah. sidaan hadda u sheeganayaa ka dhabay gudoomiye ku-xigeenka hore oo gobolkan ahaa aan u leeyahay. wixii aan ku shaqaynaynina wax sax ma aysan ahayn. waxay ahayd maxaan ku dhahdaa ilaa xaalkeedu uu ogyahay oo siyaabo gaar in loo heshiiyey in gobolkan lagu go'doomiyey loogu talagalay. halkii sano oon shaqaynaynin gobolkan go'doon aad iyo aad saa'id u ah ayuu galay. halkii sano oon shaqaynaynay gobolkan wax mashaariic ah ama horumarin ah muusan helin. xaqiiqdii mashaariicdii gobolkan uu heli lahaa isteedka Jubbaland ay wasaaradaha aqoonsiyihiin ay marinayeen. isteedka Jubbaland haddii halkan maba imaan karaan marka ay dhahayd yaan la taagnaynay. gobolkii marka dib ayuu waqtiga ayadaha u dhacay. hadda laakiin ilaahay baa naga soo bixiyey. ra'iisul wasaarihii qaranka iyo dowlad goboleedyada shantaba way isfahmeen. si nabadgelyo ayaa waxay go'aansadeen inay isteedyada ku horumariyaan, inay isku xirnaadaan. annagana waxaan u hoggaansanay sharcigii ra'iisul wasaaraha iyo isteedyada ay isku raaceen oo in laysu hoggaansanaada ah. meel aan ugu leexan karnana ma jirta. waxaana rabnaa tan ayadaheed inaan ku shaqayn. halkan waa gobolka Gada hadda aan joogno. waxaa u soo socda la rabaa in lagu doorto 16 kursi oo xildhibaano ah. 16kaas kursi waxaan u diyaarsannahay inaan si buuxda